waa qaybtii labaad ee sheekadii mataan ciideed. dhegaystayaal, xasan mataan oo sidaan idiin hormariyey mataan ciideed isku magacaabay dabadeedna sidaa ku caan baxay wuxuu ahaa dabeecadihiisii la yaabka lahaa nin laga wada shahaatay oo weli lagu xusuusto, nin ku tashaday dad oo idil inuu gumeeyo. wuxuu go'aansaday tiisa uuni inay hirgasho oo weliba qasab ku fusho. cid walba oo ay wax kala galaanba inuu qorshihiisa ku dirqiyo ayaa la wacnaatay. gardarro aan butulli laga odhan karin ayuu inta wanaag mooday hub ka dhigtay. habeen baas bay tara kaga go'day dadka eebbe wixii aan isaga dabagelin inuu nolosha u qaraareeyo. dadkii la degaanka iyo la deriska ahaa wuxuu qof u gardarraystaba wadar inuu u waxyeeleeyo ayaa maalintii dambe la macaanaatay. waa ninkii birindhaha tiraya wuu gadagadeeyey. dharaarba fal laga naxo ayuu ku kacay. maalmo kooban kolkay ka soo wareegaanna mid ka daran iyo waxaan la eegayn ayuu la soo baxay. dumarka iyo carruurtu maatadu waa ka nabadgeli jirtay, iyagiina waa ka ajoon waaye. gamuunadii gardarradiisa ruuxna kama uu badbaadin. kol qurana isma uu odhan ba'eeyey adiga kugu soo noqonne duulduulkooda uunka eebbe ka ayar. wuxuu haddaba ugu daraa diraacdii kululayd ee dheeraatay kolkii uu kala dhex galay biyihii iyo dadkii u oomanaa. muqlo rogato meesha lagu magacaabo ayuu geed ka waabtay. geed xagar ah oo inta waa hore la gurmago'aneeyey halkii ay gudintu ku dhacdayba ay laani ka baxday. geedkaas ayuu inta sii hadoodiray halac ka yeelay. dabadeedna koorihiisii inta saartay ayuu wixii aan fardihiisa ahayn harsigiisii uga dhaartay oo isaguna dhinac ka degay. waa kob aan biyo ceel u ogog lahayn, balli iyo xadheedna warkoodaba daah saaxilligoodba lama jooge. ninkii dhulka yaqiinay wuxuu yidhi haddii gunagada loo dhaamiyo iyo haddii malaada qarre iyo qoraxay loo dhaamiyaba waa 3 guul. macnaheedu wuxuu yahay 2 habeen dhaan ceelka ka soo maqnaa ayaa habeenka 3aad muqlo hogata iyo xagarka xasan mataan ku soo beegma. habeenkaas ayuu dhaankaasi halkaa ku furtaa oo awrta rarka lagaga nasiyaa. ragga wadaana ay cabbaar ku indhaguduudsadaan. berri oo kale ayay ku aadan yihiin maatadii dumar carruur iyo doonkabar ahayd ee oonka aawadii kolba hirarka dhalanteedka ay laabtu uga hinqanaysay. rag allow, maxaan u malaynaa kobtaa oo masooraha ah waxaa xasan mataan fardihiisa ku xidheeyey oo waa kii gedagadayn jiraye muxuu talow moogaanna maagan yahay. dadkii ayaa wax toyasho isla dhex qaaday. su'aal aan laga jawaabi karin ayay ahayd, isagii baase wax yar kadib ficil kaga jawaabi doona. show shaydaankii gardarrooyinka u kala doori jiray ayaa ku yidhi mataanow, ma adiga oo mataan ah ayaad fardahaaga xoog tiri oo diif aan eebba badin adigu u keeni. xilligan lagu jiro farda qoraxay u arooray maxaa ka hari? fardasaba kuu noqon bi'i waaye dadka kale ka gobsanidoo la mid ma ahide sidii qowsaar adiga oo farda u waraabinaya yaan kaalin ceel lagugu arag. mataan baa goortaas shayddaankiisii dhegta u raariciyey oo markuu dhammaystay mindhaa weydiiyey oo maxaan yeelaa? waxaad yeeshaa xagarkan haraca ah dhaamanka wabaxa ah ee soo mara maalinba mid haamaha ka degso oo geesigii ciideedow argeegta ayaa ugu biyo qaboobe fardahaaga hadba dhoon horaad ka durduur. maxaa sangayaashaada iyo geenyooyinkaaga aroorna u geeyey adiga oo mataan ciideeda? ma labalabayne tala isha laga riday ayay ula ekaatay. dhalinyaro tabaraysatay oo isaga ka dambaysa ayuu urursaday. dhaankii iyo maatadii uu 3 guulka u ahaa ayuu isgafsiiyey. awrtii soo martaba waa toydaa. wuxuu haybiyaa nin kale iyo cidda loo wado. nin alla ninkii uu madaxtaa ku maqlay ratigiisii buu arrumay. haamihii buu ka rogay oo baxdowyadii uu xagarka qolkujiraha kaga dhigay afka u geliyey. sow ceelkii ku noqon ma aha. sow 3 maalmood oo kale maatadii ha oomanaata ma aha. sow ilmadowdu ha yuusta ma aha. sow gantaaraha gardarrada ee ay awooddu lalinayso kuwa habaarku kolkool kama xanuun badnaadaan. taas mataan ma ogeyn. luunka saqiirkana waxaa uga daraa aroorka fardihiisa. ha iloobina dhegaystayaal weedhii axmed maxamed uu ku jawaabi jiray kol walba oo loo soo sheego wax xille oo uu ku kacay. weedhii ahayd xasan mataan wixii eebba ku abuuray weli ma dhicin.
dadkii Soomaaliyeed ee qarnigii 19aad kuma ay faaneen gaadiid dheereeya oo ay isugu tagaan gaadiid faras iyo rakuub weydaasan ma ay lahayn hase ahaatee waxba iskuma seeganayn baabuur iyo dayuuradayaan la haysan oo hal kala fogaadee war baa la isu hayay toltol kolba xasanada dhex gasha hala ahaadee xidid iyo qaraabana waa la ahaa waa la isu socon jiray lama kala seerayn saqiir gowrac maalintii uusan jirin waa la isbixin jirayoo la is-ammaan gelin jiray fadaqa yeelkiisa xeer iyo dhaqan ayuu dadku lahaa oo wax ku kala qaadan jiray ganacsi aan lacag la aqoon ayaa lagu macaamili jiray oo xeebaha iyo dhulka ka fogi xiriir bay lahaayeen ciid iyo geyiga la jahada ah ee aynu hadal hayno saaxil baa magaalo u ahayd magaalada oo hadda berbere loo yaqaan badyarada cadmeedna ku taal duunyo shixnadan oo hindiya iyo dalalka carbeed laga soo buuxiyey ayaa ku soo xiran jiray maxay sidaanbaa timir dhar irbado lagu tosho iyo badeecooyinka kale ee waagii la joogaba raacatadu ay bandarrada uga baahan tahay ganacsatada reer saaxil waxay badeecada ku rari jireen awr iyo rag garka haya oo kabaro loo yaqiin imaanshahoodana la dhowro safrahaas ayaa tegi jiray miyiga xeebaha ka durugsan si waxa ay sidaan ay ugu soo bedashaan baalka gorayada malmalka garaceesaanka gaashaamada iyo hadba wixii reer saaxil abda u leh oo ay dibadda u dhoofsanayaan amaba ay lafahooda u doonayaan isdhex markaasise ma dhibaato lahayn dadku godobo iyo aanooyin raagay ayuu kala qabaa ciidamo qabaa'ilka u dhaxeeya oo la wada leeyahay ammaanka qofka iyo hantidiisa dhowraana ma jirin dowlad uu dhagarqabuhu ka baqaa iyaduna dalka kama abuurayne rag allow yaa u damiin ah ninka saaxil safraha ka soo kaxaysta oo ciid ama bay ama ximan ama mudug u soo kacitima ruuxa iyo xoolihiisa tolka ayaa difaacoodu saaraa ninkaasina tolkii ka yimidoo waa kan badeecada baahida loo wada qabo tolalka kale la dhex gooshayee rag allow kuma ayaa looga cabsanayaa oo daraaddiis lagu nabadgelinayaa soomaalidii hore arrintaa iyada ah kama ay ilduufin waxay u soo rogeen waxa maganta loo yaqaan oo ka mid ah tiirarka waaweyn ee uu xeerkeennii duray ku taagnaa ninka safarka lihi kolkii uu saaxil ka soo ambabaxo wuxuu soo sheegan jiray degaanka uu ku socdo nin magac ku leh hebel buu safarkaygu ku jeeday ayuu odhan jiray hebelkaas oo ka mid ah ragga awoodda iyo maamuuska ku leh tolka uu safarku maalintaa ku socdo badanaa waa hebel la isku hadlayn karo oo aan magantiisa loo dhaafi karin haddii loo dhaafana la og yahay in la eedi doono hebelkaas oo kale waxay maradu ka dhacdaa gabadhiisuna ku guur weydaa marka nin soo sheegtay la dilo ama safarkiisa la dhaco ama si ay ahaataba waxyeelo la gaarsiiyo dabadeedna uu ka garaalayn waayo oo uu geeri ka xigi waayo maganta oo wax la yeelaa waxay ahayd dhareeca iyo barmadow oo ku ooli jirtay qoyska ama ninka inta lasoo magan galay magantiisii magan gelin waayey safarka oo keliyana ma ahee waxaa iyagana magan loo aqoonsanaa inanlayaalka xididkii la degan martida caawa kuu soo hoyatay ee ardaayadaada jiifta iyo ergada kuu soo sodcaashay oo qardoofooyin hore oo idinkala dhex galay meel isla dhigooda kugu soo cagadhigatay dhaqankaa wanaagsan ee bulshadii Soomaaliyeed inteedii badnayd ay u hogaansanayd waxaa jiray nin uu la xumaa oo inta dhinac uga bayray magantii nabadgelin waayey safarkii bartimaha reerahooda ganacsiga u joogayna goor subaxa xoog kula wareegay sida aad marayn kartaanna ninkii aan u jeedaa waa Xasan Mataan waa ninkii uu kibirku wanaag oo idil ilowsiiyey bal wax dhowra dhagaystayaal waa qaybtii saddexaad sheekadii Mataan Ciideed